السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن سين سلامي دمان أن بدأ مانتا إنك سقيب كلني ما إنك سقيب كلني مانتا أن دور الشدي أو جبلان أو نينكير سنتا أو هالبل أو نمي أركني إن دباتا يال بدم دبتريران أو دانكايني إيشان تشمبرا أهان hortay asin sheego magacayga anigoo magacayga Soomane Xasan Mahad Ngulo Paranganya mar labaad ma siin sheegay anigoo gadoomiyaha baarlamaanka shanta shambara marka maanta maysa istaagna meelan ina cadeyno doorashada Jubbaland in yaani arqaladeed nin kala jirto dhankayna oo shambara ahaan meeqa sana doorasho ka dhiyay Jubbaland nani arqaladeeyay maanta ma jecelno inaan arqaladeeyo guddigii maanta la asaasina oo guddigii hore lee aati aadan dhaliicayne dhaliil weyn baa guddigaas ka qabne inaan inku bedelo guddigaas number 2 may u baahayna Jubbaland ahaan hadii ana shanta shambara malinka aqoonsiyo waa inaan ninka aqoonsido aati aadan ku baahayna hadii ana unuga reer shambaro oo degaasa Jubbaland may u baahayna in si toosna ninka ugu yani ninka aqoonsido may soo jireenka Jubbaland ya ene anaga inti kale dhangnaba wal unka abuurna Jubbaland leeway odayaalkayna iyo anaga ba may UNCR hayni ina dadki unuka abuurno Jubbaland unu abuurni alhaas radina 91 ama 90 dibki ka dhii unusan ku baxani baraka awgeed haddana Jubbaland nin kasto iska seedi oo asaga baan lahayna mayni lee anaga Jubbaland anaga iskale marka taasna may sheenase dhibaato weyn taas may sheenase dhibaato weyn dhulkaas dhul yani shambaro way dadkii kale isdegaayno shambarna walla ugiyo way mar kale anaga cadeen doonay in dadkii nala degaayno Jubbaland laakiin hadda may sheegaan Jubbaland in ka qiyaamaysiina in qiyaamay dadkina qiyaamayna kulay laslo wada ogye ido yani misla oo fadheed doonada Jubbaland anaga hadana ay shambara waa in dhibaatadii hadda yani Jubbaland oo la asaaso taas mid beelano maaha dhibaato kale way guddi bala sameeyay oo yani la leeyo yani guddigaasa yani doorashada iyaga qeybiyeen dadkaas mar hore banin qeybi waayeen xaqayna si waayeen doorashadaas dadkaas ay to hadda guddiga la ka dhigi aadan dhaliirane guddigaas waa in ninku bedela haddaan nahay inu reer shanta shambara jubbooyinka degaan waay dad oo yani soo jireen la yaqaano baan nahay anaga haddaan nahay niman Soomaaliyeed oo Jubbaland degaan oo idaasna nahay oo shambaro la yiraahdo walaalayaal waxaan idin leenahay haddaad jirto xaq jiro xaqayna waa in la duufin oo in la soo saara intaas waxa ugu baaqahay Juma Qurma ka dhaysa AAU dawladda federaalka ayaa ugu baaqahay in ay xaqayna in soo saaran haddaan nahay Jubbaland xaqayna in la soo saaro shanta shambara haddaan u nahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مجايجا وحاوي عبد جيلاني سلامة لي يقانو سلداء أمي أو سلدان وياهي شنت شمبرا وهن سلامي هيا دمان ددوينه كنول صوماليا دولة فدرالكا نينكا مدهبينها محمد عبد الله فرماجو يو رئيس وزراء iyo dawladda oo kamid wasiirada xilwaanta iyo ciidamada dhamaan waa salaamay anigoo Suldaan Abdi Salama ku dhashay Soomaaliya tulada Kamatiirey haddana waxaan codsi ugu dirihayaa dawladdeena ina anaga u heesayno anagoo nahay shambara jubbada hoose iyo jubbada dhexe dhammaan waxaan rabnaa dawladdan ina naloo garto oo sidii xaqaynaga oo si cadna loogu siiyo beerahayna wax kasta dhismahayna wax kasta waxbarashadayna ina la xaqmeeyo ulmaawadiinkayna xaqiisa inuu qaato
waxaan rabnaa dadweynaha macluul iyo gaajada in oo beerahooda si wanaagsan ay u beertaan oo si loo aqoonsado dadka u dhib badan meesha degan. walaalayaalow waxaan idin leenahay wanaaga aad iyo aada u fiican qofka asag keligiisa inuu oo macnaha oo wanaag uu sameeyo oo wanaag samaysta ma aha. hoy la'aan baa jirto, waxbarasho la'aan baa jirto, inaa lis aqoonsado annagoo oo aflagaada anaga ahayn oo walaal ahaan u hadli hayno. Jubbaland waxaan rabnaa dadka meesha joogo inaa xaqooda la wada siiyo. haddii nahay muslimiinta oo dhan inay isfahantaa la rabaa. walaalayaalow xaqa hala kala sooco. waan is ognahay in anaga meesha degneen dadka meesha oo dad hadda oo manaha oo dad hadda imaaday oo Koyti yahay manaha arkii ilaa 60 ilaa 65 ilaa hadda waxa way anaga wax xaq aan haysano ma jiro. hadda waxaan rabnaa in oo doorashadan aan ka qayb qalna xaqayna nin kasta sidii wax u qaadanahay in naloo siiyo. aad baan idin salaamay anoo aflagaad ku hadlin oo xaqayga raadsanayo. walaalayaalow waa mahadsantihiin, waana mahadsan tahay Cabdullaahi madaxweynow iyo wixii ba qurumaha jamaacada ku dhaxayso oo all waxaan rabay inaan lagu soo dhaweeyo meesha Jubbaland. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي دمان ددوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية كنول إلا أنت مامل قولات يدا دمان وإذن سلامي أنيقو مغايغا حسن أبو حسن لو يقانو مدحتاك ما شاء الله وحن ميشان كحد للروا حقيني oo la duufsaday oo naga maqan oo si gardara oo lagu kala qaybin hayo doorashada soo socota. lambarka koowaad halkan waxa ka salaami haya dawladda federaalka hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. aad iyo aad baan ku salaagnay anagoo nahay beelaha reer Shambara. waxa halkan ka salaamiha intii maamul goboleed oo dhisan si sharaf iyo kalgaalna lagu dhisay. gaasi ahaana waxa ka salaamaya maamulka ka dhisan jubbooyinkan jubbada hoose ama Jubbaland maamulka ka dhisan haddana ay socoto doorasho oo dadweynaha ay u dhaxeeyaan sababtoo meeshaas anaga aad iyo aad ugu dulmagnahay ugu dulmagnahay. marka dulunkaasna waxa keenay odayaasha maamulada soo hulaya ama baarlamaanka soo hulaya ma sidan deegaanka ma lagu hulihaya ma qofkii la arko ma la soo dejinhaya. taas waa fahmi waynay meelan u raasana waynay. waxaan ku codsanaya odayaasha beelaha Jubbaland ay degaan sida Gedo gobolka Jubbada Dhexe Jubbada Hoose Ras Kiamboni ay degaan waa in laga qaybiyaa baarlamaanka lagu soo hula beelasha deegaanka waa in lagu soo hula. waxa way xaqa nin walba xaqiisna waa in ka hela sababtay anaga reer Shambara hadaanu nahay xaqeena ka maqan meesha xaqeena ka maqan. odayaasha beelaha degaa sida odayaasha Gedo sida odayaasha Ras Kiamboni ila kuwa Jubbaland oo Jubbada Hoose Jubbada Dhexe oo anaga aanu nahay oo beelaha Shambare aanu nahay waxaan dhihi karna xaqeena ka maqan. baarlamaanka Jubbaland maanta la soo dhisi doono ha lagu soo hulo annagoo u wada dhangnahay ha lagu soo hulo waayo meeshaas waxa ka socda qalad aad iyo aad oo u ballaaran sababtoo qof misaali karo ma jiro. laakiin annaga waxana loo keenay annagoo nahay beelaha Shambare qof annaga na misaalayo ayaana loo keenay oo aanu naqaanin meesha ka yimaaday aan sheegi karin oo leeyahay aniga reer hebel baa jireeran jireer yaa loogu toosaya ama ma Soomaali weyna Jubbaland loo kala qaybinahaya ma kuwa deegaanka loo kala qaybinahaya yaa loo kala qaybinahaya ma naqaano meesha laga keenay. ninkii maamul meesha oo u soo istaagaba waxa noo keenaya dad annaga na misaalayo oo leeyahay reer Shambaraan ahay annagana ma ogno nalama tashanin waxa aan ka ognahayna ma jiro. marka kaasan na soo misaale waxa la xildhibaan ba hal baan u dhiibnay wasiir ba hal baan u dhiibnay
taas annaga waa ka soo horjeedna mid aan yeelaynana ma aha haddii dowladda federaalka xaq ay wax ugu qaybinayso annaga beelaha shambara xaqeenaan rabnaa mid aan dib ugu laabanayna ma aha haddii maamul jubbaland lagu dhisayo waayo annaga xaqeenaan rabnaa reer shambara haddaanu beelaha shambare xaqeenaan rabnaa xildhibaanada laguma soo huli karo nin yiri anaa jareer waa yiri laguma soo huli karo waa in lala tashada beelaha shambara sida suldhaamada gadoomiyayaasha odayaasha waa in lala tashada idii alla soo tashato oo dad jareer weyne meelahaas taagan inuu yiraahdo jareer weynan ahay ama hebel baan ahay inuu la soo tashado haddii la soo istaajiyo waxa u qoolan dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada ayaga u qoolan anaga yeeli mayno dooni mayno anaga na misaal ay dooni mayno haday taas tahay oo ismisaal oo jirto waayo hadii oo Somaliland lagu yimaado Puntland lagu yimaado ha misaalan Jubbaland ha misaalan beelaha degan dadkaas oo korka yimaadaan ha misaalan anaga sidii aad u diideen ayaan u diidnay hadii aad meesha ka soo hushaan anagoo aan ku jirin mid akhrisanayno ama idinka qaadanayna maaha aniga waxaan ka hadlayaa maga beelaha shambara aan ahay gadoomiye xigeenka guud ee beelaha shambara ayaan ahay mudane Xasan Abu Xasan waxaan ku dhashay beesha Kalaanje aan ku dhashay degmada Jilib xaqeeni waa maqan yahay waana u soo taaganahay itna misaali karto ma jiro anagoo reer shambara beelaha oo suldhaamadeena ugaasadeena maamulkeena oo la arkin itna misaali karto ma jiro hadii Jubbaland odayaasha ay gada joogan hadii Raskiyamboni joogan hadii Dhobley joogan hadii Kismaayo joogan hadii Kismaayo iyo dhulka ay ku wada jiraan itna misaali karto anaga ma jirto waan diidnay illa la kulmo maamulka beelaha shambara sida suldhaamada odayaasha ugaasada gadoomiyayaasha waa in lala kulma dowladda federaalka baag waxaan u dirayna anaga ni misaali karto male dadka xamar joogan nama misaali karaan ayago oo suldhaamadooda adduunku ay heg lagu arkin nala misaali karo ma ogolno waan diidnay fadlan waxa idinku codsanayna maamulka Jubbaland dowladda federaalka hogaaminaya Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxaan idinka codsanayna anagoo nala arkin beelaha shambara xaqeenin aan xaq oo beelaha shambara aano loo soo dhibin ama ayago ku jiraan la kala qaybinin anaga dooni mayno ergadaas anaga qaadan mayno idda leedahay hebel baan misaale hebel baan aha ma jirto wassalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh anigoo Abdurrahmaan Ibrahim Khamis oo unku magad area Chamalo oo ka dhaladii Kobon tuulada Kobon ka dhaladii beeshi Kobon ka dhaladii oo Jubbada hoose haq ban leeya ku sokori meeshii inka dhali way hadina may aragoyne Jubbada hoose ina dad oo an ahayna ni mitiloe taas man aragaane qalatan aragaane dadkii isla degina oo Jubbada hoose iska saane unu dadkii dhan iska saane wahi Jubbada hoose degaw iska saane unu dadkii ni degaw unu isla degina iska saane ina oo qaladaadkina ninka dhaafo oo boobkina ninka dhaafo oo si islaan lima walaal lima ina sheeki ina oo la kushal goosido way si walaal lima ina sheeki la kushal goosido way taas min arage Kismaayo hadi boobka dareere Kismaayo hadi boobinka dareere boobkaasay may nagadi ina oo dib oo maana ku kooyo maana dib wiin ku kooye taasna andine dib andine maywa hadii oo dibki hadii la badiyo badade hadii la yaraysime taas intaasun ku bahi may nagadi federaalka nagadi Kisalaami Farmaajo bogol tuman afarti quraanka karinkin kinka salaami khayre bogol tuman afarti quraanka karinkin kinka salaami ay sin iyo wahi oo hibilaan iyo wahi kulli sin salaami salaan kadib madaxweyne Farmaajo wal kasto unu adiko sugoyne adi iyo keere wal kasto isin ku sugoyne inna unu haguugtano oo banaanka sanin digtona haguugtano sanin saartona inna oo unu wal kasto isin heginka halno inta sin ku tuugane
islaamnimadadi jirte walaalnimadadi jirte hadiska diin is ena diintano boqoltoma afartii halku iska diin ena si halaas diinti falije maysin ku tuugan ina haguugtano ina banaanka sanin dhigtoona haguugtano banaan sanin dhiga madaxweyne Mohamed Farmaajo iyo Hassan Kheire ra'iisul wasaarahi maysin ku tuugan ina haguugtano banaanka sanin dhigtoona sidii wallan shal goosiday ina shanti shambara ka jiraato shanti shambara odayaal qabte shanti shambara dhalinyaro qabte shanti shambara dad oo macna oo yar qabeena oo barbar ayena waxa way oo dadka yarki wal malan sheekaro ilaakiin shanti shambara odayaalki ina la ili hariiro wahi diyaw iyo wahi galadaad diyaw wahi walhun diyaw iyo sahayna hadii walhun ay hunya dhaayna hadii faylanya dhaayna ina la ili hariiro odayaalki shanti shambara inna oo arintin intaas ka dhamaato ununa untu janjabingna jubbada hoose janjabingna wadankano way wadanki ka dhalani way mana dhaafto doonno haddii unu jubbada hoose unu degina Kismaayo doorashadiye si hurra ka dhiido si islaamnimo ka dhiido si wanaag ka dhiido haddii si wanaag ka dhiine mana dhaaf doonno ka daba jiraadane illa oo safaylan ka dhiido unu ka daba jiraadane Hassan Usman Abdi Ali waa beesh harawn waa ku dhashay Jilib degmada Jilib marka umrigayna ma yara waxaan jiraa 75 sano jira waagi Soomaaliya toosooy hadag jiidkii ka jiray Jilib ya ka jiidi aan hadag galantay aan in ka jiidi way nin badeegan ali nin badeegan shay ha ilaalisado ninkii madaxweynimadaas una baad ee ogoonsan way meel kasta ku kooyo kii gobol roogo baad ee ogoonsan way laakiin kii gobol roogo kii li roogi geeb hasiyo geebti us haq lahay hasiyo haq shay maayen dad banaanka ku kooya ka safe markii onagato an mayang mangaragawtaas aniga may liidhay Hassan Usman Abdi jareer weyn macal shambara suldaanka wing illa bari waqooya illa baadi Kismaayo wixii jareer roogo dhon ya suldaangiyan shiidle shibele makana gasara gawaawin intaas kuli eelay dhon baadi ngey way suldaan ya ayna nin ku roogsinay unana dhirfaane dadka dhego galaane taasna may sheena wal diinta la ka bahayo gaale la nagadaw dadka dhomba halno dhaafo ninki meel alla meeli maamulka markaas oo yaalo unan gibalana halna siyo gibtay hadina nin siyayn iskida dhego wa ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh